الرحيم waxaan soo gaarnay gabagabadii of normal labor waxaan soo dhameynay labor 1 2 3 4 maanta waxaan gabaynaa 5 shalay aan ka soo hadalnay 4 kale normal labor 4 waxaan uga hadalnay waxaan soo bilaabnay management marka waxaan ka soo hadalnay ko first stage maanta waxaan ka hadlaynaa second and third stage of labor management geeda soo ma waxaan 1 and 2 and 3 4 waxaan ku soo fahnay first stage second stage soo ma third stage diagnosis of labor kii waxa dhammaan ka soo hadalnay maanta waxaan soo gaarnay ugu dambeeyay oo management shan soo bilawnay management waxaan ku soo bilawnay qaybta keeba first stage maanta waxaan uga hadlaynaa second stage second stage maxaan sameynaa hadda shan waxaan soo fahnay first stage maxaan sameynaa first stage waxaan dhahnay waa stage of cervical dilatation soo ma waxaan dhahnay stage of cervical dilatation ka qofku wuxuu leeyahay dhahnay starka waxaan dhahnay wuxuu leeyahay laba qaybood soo ma qayb lagu sameeyo admission ka oo koowaad waxa la first stage oo bukaanka intuu ka noqonay full dilatation intuu ku joogo intuu ku noqonay full dilatation marka full dilatation waxa loo soo gudbinaa qaybtan loo yaqaan second stage mifan marka first stage kan soo dhameynay bukaanka meesha ku jiifaa يعني بارتوغرامka kula soconaysa blood pressure keedi pulse pressure fetal heart waxa meesha kula soconaysa saa u qaadata decision ah normal vaginal delivery or cesarean section according to the events meesha ka dhacay first stage alla marka ultrasound kaagi wixii dhammaan soo shalay soo dhameeyna waa investigation ana waxa ku sameeyay second stage ka soo gaaray marka soo wareejinay waan full dilatation soo wareejinay qaybtan kale starka oo second stage waxa loo yaqaan second stage of labor kitabkan uu kala qaybinayo hada starka uu kala qaybsan yahay first stage and second stage oo soo wareejinay bukaanka soo waxa ku garanaysaa most feel desire to defecate so and so contraction ka become more and prolonged so ziyada and painful si noqona so waxa ugu muhiimsan waxa iska war ugu muhiimsan ugu garan waa inuu noqdo full dilatation marka division waxa arkaysa inuu full dilatation inuu yahay so oo yahay 10 cm so marka ana mostly yani inta wali waxa DV muhiim oo yahay between the contractions ka ayaan ku ogaanaa waxa la waa full dilatation kadib waxaan bilaabaynaa in diyaarno preparation of second stage kan loo diyaariyo bukaankan kadibna خلاص maadaama first stage ku soo dhamaado uu noqday full dilatation sidoo kale xalanahay waxa loo soo gudbinaa second stage ka ama loo yaqaano delivery room ka sama delivery room ka uu muhiim markii loo soo wareejiyo bukaanka xagga ahaa hadii sama ay ahayd sariic caadi waxay noqonaysaa lithotomy position yani waxay noqonaysaa nidaamka loo yaqaano lithotomy position sama lithotomy position this is حنانها هو lithotomy position على ديارنا position شلون حنانها lower abdomen and upper part of the thigh أو هذا لو سمينا wash أو حكو سمينا antiseptic lotion سواء أنت lotion ما استعملت antiseptic solution كده حكو سمينا washing in the abdomen upper part of the thigh and the valve and the perineum سواء أنا حكو سمينا washing يعني هم ديارنا washing سمينا ديارنا إنه نقولنا normal vaginal delivery and then patient to peeing down سواء يعني to ask to be down sama patient ka laakin during the contractions ka waxaan during the contraction please peeing down ama waxaan nahay yani time between the contraction waxaan relax sama ina sameeyna relax between the contraction laba contraction waxaan relax samee iska naso between the contraction marka contraction maada you must to peeing down laabud sama si ma taqaan laakin haday sameeyso continuous peeing down to contraction oo jimahada inuu exhausted ama bukaan waxaan halas that is exhausted and dehydrated halena we take rest until halena okay maanayo yani contraction to contraction maadi you must to be down contraction jira relax maxaa sameynaysaa markii hadda waxaan soo fahnay shalay first stage maxaa hadda second stage maxaa sameynaysaa observation sameynaysaa only during the second stage maxaa la dhici karaa in la dhici karo wax loo yaqaano failure to progress ama waxa dhici karo fetal distress ki during inta lagu guto second stage ma second stage ma wax ma islaagin wadi pulse rate kooda blood pressure kooda fetal heart meconium color kooda waxna waa la soconaa ayadana sidii hore wax isbedeli maayaan maxaa yeelay yani sidoo kale second stage waxa dhici karo fetal distress waxa dhici karo failure to progress sama barogramka si waa ma joojina يعني failure to progress dhici karto failure to progress waxa la soconaa saddex shay maternal condition هذا لا سؤال fetal heart sorry maternal condition pulse rate كده blood pressure كده هذا ما لا سؤال sometimes على يا ولد markay taho kale one scar hore la rabo in la siiyo chance oo loo yaqaan feedback yani harayna fursad siiyo inay ku dhasho vaginal delivery sama vaginal delivery problem waxa waaye aan la socota sometimes pulse rate kده blood pressure kده waxay tusinaysaa tan inuu jiro rupture uterus meesha marka ka socon fetal heart kده blood pressure kده meesha ay sheegayo hadii stable something stable sign waa ina fiiriyo what is the problem fetal condition ka la soconaysa fetal condition markii xaq la joogay waxa la soconay fetal heart intan fetal heart la soconay
حاجه waxa la soconaa marka la joogo first stage aan joogno every 30 minutes inta la every 5 minutes خلاص bukaanka خلاص waa delivery time of delivery jooga خلاص laysa ton position خلاص waa la qaado waxaana waxa la soconaa ayadana fetal condition kala soconayna every 5 minutes لايكركي سمع ama loo yaqaan amniotic fluidkiina waa la soconayna meconium stain noqoto basama meconium waxa la grade 1 grade 2 grade 3 arka doona sax green waxa noqona culus green qafiif sama sax si adkaana marka waxa la soo kala soconaa meconium maxay raada meconium arka waxa ii sheegaysaa inuu jiro distress maadaama uu distress jir maxaa leenahay waxa u baahan termination si u boobsiis ah yaana isticmaal instrumentalki inuu ku soo jiido forceps inuu ku soo jiido fintos ama hadii macquul ahaan inaan تقرأ عند دجي second stage كذا سكان يصبحين إن أي already prime gravity تحبه أو سو فيها تقولي هاي أو نسينا تسوين هذا حالنا حاسبيننا سيسين section إحنا شو هنرص عنه مدة أنا لايكر كي مهم ما مهم مر كان ما أنا رص على مهم واحد uterine contraction إيش كوارص عنه صح uterine contraction كوارص عنه وهذا كله شيء هو joke so full ذات من القضية contraction كوا يرى ويرى وين سيكل oxytocin أنا كلام أنا زيادة contraction كوا في عينها 1 hour 2 hour قاعدتي وحنا مسوا صعدان ديس وحنا أيضا هو failure to progress second stage وحنا ما حلنا هو failure to progress حنا على emergency section صح ما قلنا كونتر لكن تو contraction وسنجرين full data إيه تاعي نديك محلنا مشكلة ده كتير توا contraction وإنه زيادة لأنه مركز أنا متقامة أنت full dilatation أو نقطة في تسك أسبوع ولا متوا 6 متوا صح باور كي passenger كي passage باور كي مجرد contraction مجرد oxytocin سي contraction و full contraction لبدا ما حملك بدل كراني مركب passage كا عن passage حملك بدل كرا سينا section قال لكن power أنا بدل كرا مع سين oxytocin أثناء فهو زيادة power لكن power كدو حوجين خلاص ده سواء كلنا للصعو uterine contraction ولا صعنا محيا له contraction في عنجله في تسك أسبوع وايو هذا prime gravity لحد 2 hour هذا prime gravity paraslide تهانو حالنا 2-3 hours ولا شيء 1 hour and half أما 1 hour يسويسه وحالنا this is why failure to progress سما why failure to progress وحوله first stage هي failure to progress second stage ممكن عندنا failure to progress second stage بس عطا مركو عندنا contraction لو حدوث contraction جوا أنا سمعنا حتى يجرن وحالنا خلاص هم بدل كرو passage كي passenger وأنا بدل كرو معنا وبونسكي of the هذا and the size of the feet حالنا مخصوصا baby هاي وحالا يلا صم إنه large head يا سما كفاية وهو يهم تقنا هذا سفلاس and so on وحنا كبدي كمان كلا بدأ سبي هل كبير بدرك وأنا وصل على مركي يعني uterine contraction so the progress of descendant ما صار عنه ما صار عنه ما صار عنه يعني 1 hour 2 hour full dilatation time good contraction كده very good أو very strong واحد صوص عندنا مرة descendant مجرى ما حسبنا مركي ديس وحنا هوا خلاص عندنا ديس هو failure to progress وحنا لنا هوا أما حنا هو contracted بالفعل سجلنا خلاص سير إحنا قلنا وأنا شيء سؤال هذا كده you are contracted بالفعل ما حيل فرصة كسينة إلا full dilatation 2 hour وحسود دقيقة مالها ديسان إنه مجرى بقى ماشي على نواه CBD CBD محل هذا سيفال بالفيكتنس proportion يعني بكلوين مضيحي إياه يبلف كلا بدي passenger كم يسجلها يكون حالنا ديسان وأنا على صعد مركب progress of descending على صعد نسام every 30 minutes على صعد وحفيلنا 30 minutes كده وحفيلنا مسودة نمشي تاني مدة 2 hour وزيرو تاني هبة مسودة عفوا خلاص كده بحب الله مركز إنه سمي كبوت وبلاقي إنه سمي مولدين وحنا نديس عايزين مركب obstruction ده ناس كشيء ده 4 hour كده وأنا قلنا obstruction labor مثلا أنا لسه صعدة للصعة وترى condition fetal condition every 5 minutes لايكر كلا صعة أنا distress خلاص intervention سماه ماشي distress ما خلاص صعة كلا سماه في تهرت ما خلاص أنا distress كا ميكون يمكن ما خلاص أنا ما لايكر كي سماه amniotic fluid كلا يقرأ لايكر uterine contraction إسكاني وحي شيء سا failure to progress إيه جت إنكر contraction حب أنا جلو 2 hour 1 hour 3 hour واحد بدلوا منها محل ديس failure to progress contraction مجرد وأنا سيا oxytocin سام زيادة contraction ديس محلنا وا observation وسمينا second stage خلاص هذا فانتو ديس معاه واحد اللي بمقفصنا يعني لأن هذا ده سمي كرتو كنتو ماني امتحان هم دول ودي ما كفاية مش اشتغل هنا وا كوفو دانسا deliver of head يعني ممكن رأينا كوما second stage على سوق جار إحنا مقصود قدمني descend وصل سمي contraction هو حوجي في تهارت وحلبة ونورمال deliver of the head صح يعني head deliver of head محاسبنا يعني واضح كوبا حصباح ثم ما دام وهي سفالك احنا كوبا حصباح head صح the main aim يعني الهدف هو مهم سن أو أنت لو بيجي deliver of the head محاول إنا سمعيه prevention إنا هو سمعيه إنا سمعين perineal tear أما perineal laceration أما perineal injury إنا سن perineum key of the فقاعدة يسون جانب واحد injury صح perineal كي يسون جانب واحد laceration أما تروح قاب كامر كأول بدأ كرا إنه سن head كان سود دقايو
oo ku sameeyeen hooyada perineal tear ama laceration laba qaybood to support in sameeysid perineum yani perineum support ku sameeysid markuu head soo socdo saa u celiyo perineum ku celinaysa support ku sameeysa ku celinaysa iyo ina u sameeyso waxa loo yaqaan episiotomy episiotomy maxay tahay waxaana waa perineal incision yani ana waxaan arkaa sawirkan urtana yani markuu yahay perineal waxaan sameeynaa incision during the labor hadafka ilaa maxay tahay to prevent the perineal tear ama perineal laceration ama injury soo gaarin ayay ka celinaysaa marka waxaan leenahay ana ma u jeexay intuu asiga oo headkan xoogeen oo weyn ka badan intuu asiga wada jabsan lahaa ana biyo soo socdo kale biyo lagu soo daayay marka dad meel u jeexday ay ka baxaan وفوضى لكن هذه أنا مثلا أنا مال وجهين أسامي الحب من جبسنا وين سما مركز هذا ساسو مركز هيد كان هذا هذا مال يراد أسامين إنسيشن يراد أسامين إبسيتوم يراد أسامين خلاص هذا أسامين سماش شرط كصباحا هذه آدم أسامين أصابح أسامين أنا واسع سواسي بيحوق صعود كله آدم أبنين وده إبسيتومي إبسيتوم مركز لبش يا أمي مثلا تايم كلا سامين ما قارمه أيم كليله واحد عنه هو بريفرنس دي فيديو إبسيتومي محيطه يعني وحالنا اسمه perineal incision يعني incision أو سمينا perineum كي incision أو سمينا perineum كي هاي يدرجوا جد الليبر هذه ودي محيي هدفك to prevent the perineal tear يعني وحول جوجينا perineal tear إنه دعاء عمل laceration أم injury دعاء to prevention بسمينا أوكي time كيلا سمينا حالنا وحن سمينا مرة بلا ما سمينا إبسيتومي وحن سمينا مركو هيدك أو maximally distending the valve يعني مركو هيدك صور جرسوم أركض صورك يعني مركو سفي عن أصوغل أيان أصمينا إبسيتومي تايب اسمه لها الودي كرا وعلى ذا وحلا تو تايب هيك تايب إنه ميد لاين نقطة سمع بيسمح لنا هايوا فالف سمع بيسمح لنا وأنا الكنك إن توسك أو أنا الكنك أو فرت حلوق أنا ميد لاين أنت صفرت أما إن جيس كأدم حلوق أنا فيديو لاترال لبا تايب ولا صورنا واركنا This is waxaan waa episode hadda ka sheekeynaa sama episode we have two option inaan dhameeno aan video lateral sama yani video lateral ma aadayo dhinaca of rectum kan waxa loo yaqaanaa midline ma aadaysa dhanka rectum waa isku bardhigana marba mid walba faa'iido ay leedahay maxay tahay time waxaan dhahnay waxaan markuu soo wada garsan this waa headka sama markuu headka oo soo wada buuxida valve ayaan u sameeynaa sidoo kale aan u sameeynaa waxa loo yaqaano this waxaan waa local anesthesia sama waxaan siinayna lidocaine sama lidocaine maxaa waaye lidocaine waxaa leenaha waa local anesthesia meesha local anesthesia sameynaa lidocaine ku shuba kadibna waxaan soo qabsanaynaa caesarkii kadibna waxaan sameynaa cut ayna sameeyo medial lateral ayna sameeyo midline sama yani ina medial lateral sameeyo ina midline sameeyo we have two option midline oo dhinaca rectumkana soo aado and medial lateral sama inaan geeska soo aado marka soo fadhigana mid faa'iido leh أكاديمية قاموس إيلانين fogaan wax ka dhigasho kuu fududaynaysa inaad wax walba aad danaynayso aad barato adigoo gurigaaga jooga qaamuus waa kaalin waxbarasho online ah looguna talagalay kobcinta iyo kor u qaadista aqoonta baraha iyo barayaashaba sidoo kale u diyaarinta qalinjabiyaasha siday u abuuran lahaayeen shaqo marka mid walba faa'iido leedahay hadda isba dhigto faa'iido maxay tahay marka uu sameeyo midline iyo marka medial lateral marba waxyaa u badan kana midline kana fiican laakiin waxa la isticmaalaa waa medial lateral marka aad laga rabo farqa maxay tahay midline maxay tahay marka toos u furo marka la surgical repair in loo sameeyo surgical repair waa easy for food and surgical repair loo sameeyo inuu sameeyo heal fault heal yani inuu mataqaana heal qaldan oo isku sameeyo badana ma dhacdo bariir waa wax fiican post operative ka marka loo sameeyo pain-ka waa minimal waa yari waa wax fiican anatomical result sama in anatomical ki si sax isku soo adiyo xalana aydan oo saxmo waa excellent wax fiican waa loo skill weynaa markii meesha loo sameeyo incision ka waa yari marka loo fiditaan waa ka badan yahay more waa tan sama medial lateral marka loo sameeyo medial lateral loo sameeyo waa more bilaga care dyspareunia waxa laga wadaa waa pain during the sexual intercourse waxa loo yaqaan dyspareunia sama dyspareunia marka xalana waa rare badan ma dhacdo fiilataan marka fiican waxba fiiriya in surgical repair sameeyo waa easy inuu heal waa yar tahay pain-ka waa minimal يعني إنه anatomical results كسمة ماشي مركي السكوت أو صحنس excellent واحد بلوسك واحد لكن حالنا هاي سكوت ديسبارينيان وارير تنا واحد من بدل مركي تنا القاعدنا فيري ولا قاعدنا تنا واحد من تهلينس أري extension حسنا نسها يعني ميت لاين كي واحد كل جن سما إن أنا الكنال كي وكسفرم أنا الكنال كي وإنجلي جالسين أنا الإسفنكتر كي أنا الإسفنكتر كي جالسين خلاص مركي ده سواء common يكوتاي تنا لكن هو uncommon سما كم بنو
dad soo waxa isticmaalna mediolateral waxaas oo ayado leh balliskooda waa badan yahay dyspareunia waa leedahay wixii dhan ayado iskala ayaan dooranayna halka hadaf maxay la tan ugu daran tan serious ah in oo anal sphincterkii oo injury gaaro tan marka waxay kuma ku tahay inuu gaaro anal sphincterkii injury marka waxayna mar rabnaa isticmaalina waxaan isticmaalina hadda mediolateral maxay yeelan ma lahan extension kaas ma lahan in hadii uu soo bariina asbari karta do episiotomiga yani mostly waxyaabahan dhahnay not always necessary يعني مرة بين استعمال قسم ما مرة الاستعمال وممكن حالات قارن complicated vaginal delivery معك منه breech واي سما complicated واي shoulder dystocia forceps أما فينتوس استعمال ربع instrumental vaginal على سكولها forceps and فينتوس أما فاكوم اسمه ده فاكوم وفينتوس and forceps وحنا نوع سكويه instrumental delivery سيدا كدو ماشي أوجر scar of perineum سما ماشي واحد scar هذا يعني perineum واحد تقول على سميه episiotomy marka waa ina markaan u sameeyo maxaa yeelay meesha waxa sameeyay scar noqonaysa fibrosis and rigid meesha waxa noqonaysa strong waxa waa ina u sii sameeysaa hadii kale meesha waa adkaanaysa second fetal stage waxa rabaa fetal second stage waay war fetal stage waxa rabaa si boobsi ku soo bixiyo ina waxa leena waa indication ina boobsiyo kadib waxaan sameeynaa lahaynay qaybta dambe marka headku marka soo baxo delivery of the shoulder sama in laba shoulder soo baxaan kadibna inuu soo baxo inta dheernaada of the body kadibna clamp in lagu sameeyo the cord and cuts delivery of the shoulders hada xeerna ka taabano labada shoulders oo soo baxayaan yani ko waxaan leenahay waxa la soo bixinaa ka anterior shoulder inta qaabka soo bixinaysa gentle down traction yani gentle yani madaxa hoos u soo riixid yani gentle down yani hoos u soo jiid down traction hoos u soo jiidayso أنا حنا down traction هذا سجيد سو صباح كان هوري كان anterior كيسمه يعني مركز سجيد وصباحه طبعا سيدا كلا حالنا هاي the posterior shoulder كاكو صباح كان the posterior كاكو صباح دونا posterior صباح دونا delivery in لازم elevate of the head ما راح كرو هذا شو elevated of the head ما صباح هو صباح كان صباحنا هو سوري ما راح هو down traction سمي هو صباح anterior كا up ما راح كرو هذا waxaa soo baxay inaan posterior ka soo baxay jismka waxa laga qanalenahay waa conduction of the delivery ama delivery of the shoulders yani ko waxa soo baxay anterior dibudi best answer ka imtixaanka ko waxa soo baxay anterior aagu soo baxay waa down traction yani madaxa hoos loo sii down traction hoos soo riix kan doosna ka bixin iskar waqad immediate care of newborn yani marka fiidku soo baxay kadib wuxuu u baahnaa marka loo sameeyo immediate care inuu u baahan immediate care waxa isla markaas loo sameeyo care sama neonatal isla markaas la soo qabto بدنا قولك second stage كوحو ليهاي قيب ير oo lagu tarkeeday haduu salaan isla markaas waxa ku dhigan qaybta nursery soo ma qaybta neonatal care ka ama neonatal noo yaqaan nursery marka sabax isla markaas waxa ka fiican bracing kiisa normal miya ama normal haduu yahay an kara imid loo isla markaas aan trying soo try la soo waa la jina an warm soo ma meel wuxuu leeyahay meel yar loo kuleena la gelina andan waxa si looga ilaaliyo cooling soo ma hayl isla markaas wuxuu leeyahay fiidku sabax kadib isla markii waxa la heat loss بعدين أسمعك سؤال لا يرى حاصل سما كده هو يسألوا دي وخلاص وحوسي بدنا يعني lactation كار لا بلا breast feeding if spontaneous respiration is not يعني لما سمع respiration مو ولا هم بس no respiration not cry immediately some after birth respiration بلا بس سمع كاس immediately لأن إحنا عن golden time في سمع صبع سمع كاس لو ده هو إحنا ما golden time تأخذ جوار حكى في عندك قد لبض تأخذ بعد حكى في عندك قد سدحات حكى في عندك أفراد حكى في عندك شنط كل ما مدة سكور كفاية كده حسابنا أبغى سكور كحسابنا صح أبغى سكور كسورانا أتوقع كنا هي أبغى سكور كأكل حسابنا أبغى سكور كمحوك أبغى سكور هذا محوك تاعي هاي أبغى سكور صح هذا محوك تاعي أنت هاي muscle to أما activity muscle to مش يسافرنا سا إنه تون سوينا كله أسوي عليه سما 1 2 3 مركز كل حاجة طبعا إنه نقطة نورمال هو إنه 10 نقطة يعني إنه more than 8 دوية أوكي بل سي سلفيرنا شوف عنا فيرنا حلو يقانو ريفلكسي سما irritability هذا حالنا appearance سما skin color كيساننا color كيسان فيرنا بس يانوسي سما pale سما مسوا pink color سما يعني مركو pink color هو normal يعني pink color نقص عادي نشوف فيها سما أما blue بس يانوسي pale لو حنا مصري حواي ما بيجرب circulation مثلا حكى عبسنا إنه يهذا fresh steel بس مركو pale أو يهاي pale سما respiration كان فيرنا سوكا سما absentemia
مسوا slow مسوا vigorous مركو حتى حنا نوا أبغى سكور كحسابنا وحنا أبغى سكور سوا 10 وفي عين شوف أنا وحنا سوينا بدنا بيضاء management يعني صار من management of first stage management of second stage ده حسوا قالنا management بدنا بيضاء كان management of third stage كي بدنا بيسمع stage كي بدنا بيقاب كم هذا كم حيته stage كسيد حدا على نوا delivery of the placenta سمع يعني هذا على stage 3 وحلا وضع delivery of the placenta delivery of the placenta حالنا هذا على separation أي صومة سمع اسمه and then delivery سمع كل واحد صومة separation and then expulsion إنه صوبحش marka waxaan laba qayb loo sameeyaa managementiga marka aad joogto qolka Soomaa inaad sameyso passive iyo inaad sameyso active bas waxa koona wait wasoo spontaneous inay soo baxdo expulsion of the placenta yani waxa ma sameeyna bas waxa wada waxba intervention ma sameeyna active laakiin ana waxaan sameeynaa management laakiin passive management wasoo only wait to spontaneous occurrence inay soo baxdo kaliya spontaneous Soomaa waxa waxaan placenta inay spontaneous soo baxdo active management waxaan siinaa drug sameeynaa you try contractions isu bogsiismada ay soo saarto active ka sameeyana bukaanka risk ugu jiro kala postpartum hemorrhage risk ugu jira maxaa rabay soo dhaafay keenaysa second way keenaysa primary postpartum hemorrhage wana bogsiya marka waxaan leenahay maadaama aan sugayo markaan weyd sameeyna waa inaan aqaano wax loo yaqaano sign of placenta yani in sign ka ii sheegayo in separation sameeyay placenta sama aan u baahantahay sugo sama يعني waxyaaba aan sugayo maxay tahay aan leeyahay this is what sign of separation of the placenta maxay tahay saddex shay yani markaan leeyahay waxay soo sameeyay separation sameeyay waxaan sugo oo kaliya inay sameeyay expulsion bas saddex ka waa muhiim waxa waaye ma soo foqo ma koribi ku dhigan tahay sama waa mataqaana waa serious laga arkaan ama waxa this is xalaas separation waxaan lagu weydiiyay wala isweydiiyay ma u muhiimsan waay ana kala garto what is the sign of separation of the placenta ama placenta separation ko waxaan leenahay body of the uterus muxuu noqonaa small and hard and globular so uterus ma taawat sidoo suprapubic bulge due to presence of the placenta sama meesha war waxa kale oo si muhiimsan tan oo muhiimsan oo number 2 kan elongation of the cord without receding so yani waxa arkayna inuu dheeraanayo so elongation of the umbilical cord sidoo kale number 2 waxa leenahay gush of blood yani waxa leenahay arkayna gush of blood of the vagina waxa number 2 waxa gush of blood number 2 waxaan leenahay elongation of the cord number 3 waxaan leenahay diluvidio waxaan leenahay the body of the uterus become smaller hard in noqona hard sama dhagax oo noqona and globular waxaan saddexaas oo muhiimsan markii garan karto yani science-kaas inaan ka karto sign oo muhiimsan aan fahmi karto kadibna waxaan leenahay inaan maadaama aan dhahno waxaa jira passive iyo active passive waxaan waa suuya sama active laakiin maxaa sameynaysaa active management waxaan sameynaa treatment active management maxaa hadaf laga leeyahay active management waxaan leenahay oo third stage active to deliver waxa rabaa inaad active la ku soo bixi placenta way waxay joojinaysaa ama prevention iga sameynaysaa inuu sameeyeen postpartum hemorrhage active marka maxaa isticmaalaa marka waxaan isticmaalaa oxytocin صح هنا نسميها حاسين oxytocin waxay sameynaysaa uterine contraction drug sensitive active management soo ka xasan halkan cord controlled contraction CCT aloo yaqaan controlled cord traction maxaa wada yani ma soo wada jiiso cord maxaa dadku waxay sameeyaan cutting sama marka leenahay controlled cord traction soo sameeyaan kala ku soo bixina sidoo kale waxaan sameynaa uterine massage other hand sama yani gacan waxa ku soo bixinaysaa other hand waxa sameeyaan loo yaqaan uterine massage sama yani left hand waxa ku sameeyaan uterine massage tan waxa leenahay waxa sameeyaan controlled cord traction this waxa loo active this waxa loo yaqaan active management management of stage waxaan leenahay aydan marka waxa intaan ka soo bixino inaan waxa u muhiimsan oo aan sameeyno waxa loo yaqaano inaan sameeyo examination of the placenta way maxay leeyahay haduu qayb kamid ah placenta ama membrane uu soo haro waxay keenaysaa postpartum hemorrhage marka inaan scope placenta in a complete in kale if not complete I need to remove into the remaining part of the placenta hadii kale waxay keenaysaa postpartum hemorrhage the placenta and membrane waxa leenahay and umbilical cord should be examined waxa la iska fiiriyaa inuu complete in kale and complete ma tamsama sama so ka waxaan examination of perineum waxaan ka fiirinaa any injury any laceration hadii jiro inaan u sameeyo repair hadana sameeynin waxa dhacay postpartum hemorrhage so inaan same time ka blast marka fiirsan marka fiirsaa hooyada sama perineal region of the mother and fiirsid the valve outlet the vaginal canal
the cervix ama hasa ma fiirisa an laceration dujiro you must repair why hadaan repair sameeyno wuxuu keenaa inuu dhaco waxa loo yaqaan postpartum hemorrhage the perineum kan sidoo kale waxaan leenahay haddii jirto mataqaana perineum or episiotomy haddii la sameeyo ama tear ama incision u jiro should be repaired sama immediately why hadaan repair sameeyno waxay keenaysaa secondary ama primary postpartum hemorrhage تسمع لنا the placenta and membrane يعني examination of submission the placenta and the membrane and who you see that complete in care after the delivery to look this is a complete or not complete the placenta waxaan markaa sheegay soo jirnaa stage waxaan xaajada stage afraad oo la dhahayo fourth stage oo ah observation shaqada maxay tahay observation yani la socotid for the patient particularly yani waxaan kala soconaa uterine anatomy pages maxay uterine anatomy dadka maxaa waayo anatomy waxa laga wada eraga tune maxaa waaye waxa waaye contraction soma uterine anatomy waxa ka wada inuu yaano relax yahay uterine inuu relax yahay maxay la uterine anatomy yahay means waa relax wuxuu keenaa postpartum hemorrhage wuxuu keenaa faja'an ruuxana soconaa uterine anatomy aan waxaan ka fiirina vaginal bleeding aan waxaan la soconaa blood pressure kii aan pulse rate kii hadduu jiro any complication meeshaas aan kala soconayna pulse rate keeda blood pressure keeda any bleeding any trauma waxaan leenahay waa la soconayna sababta waxaan kusoo gaarnay inaan gabagabeeno normal labor waxaan noogu soo gabaynay cashkeeni course waxaan kusoo gabagabeynay waxaan ka koobnaa afar waxaan u qaybinay 5 yani 5 lecture ayaan u qaybinay normal labor waana soo dhameyn 1 2 3 4 5 waxaan soo fahnay normal labor waxaan rajeynayaa inaad waxba dhiba ka qabi doonin normal labor waxaan ku xijin doonaa bilaabi doonaa berri haddii la yiraahdo abnormal labor insha Allah